bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Run ahaantii maalin dhowta ayaan waxaan arkay gabadhan oo ka sheekaynaysa arrinkan. waxaan caddaynayaa anigoo ah wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ma rabno gudniin. Arrinkan oo ah mid ku xun diinteena islaamka iyo sidoo kaleba dhaqankeena suuban. sidaa daraaddeed ayaan waxaan jeclaystay inaan ka sheekeeyo dadkii wanaagsanaa iyo dhibaatadii ay u soo mareen diinta islaamka. maantana waxaan soo qaadan doonaa qisadii Haajara. Haajara waxay ahayd gabadh ka soo jeeda Yaman, sidoo kalena waxay ka talinaysay boqortooyadii reer Yamaneed. Haajara, Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam, waxay ahayd xaaskiisii. Sidee bay ku guursatay Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam? Nabiyullaahi Ibraahim wuxuu qabay Saara. Saarana maysan lahayn wax u badaa. sidaa daraaddeed Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam xaaskiisii Saara ayaa waxaa qabsaday boqor, isagoo rabay inuu ku sameeyo xumaan. balse Saara Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay bariday, markastoo uu xaggeeda u soo dhaqaaqana waa uu suuxayey. sidaa daraaddeed ayaa markii uu ka yaabay uu xaggeeda u soo dhowaan kari waayey ayuu Haajara siiyey ku yidhi orodtanna qaado oo idhaaf. sidaa daraaddeed Haajara waxay noqotay mid u khidmaysa Saara, balse laakiin muddo markay u khidmaynaysay ayaa Saara waxay u soo jiidisay Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam inuu guursado Haajara. run ahaantii waa uunu guursaday, waxayna yeelatay uur. dabeedna markii uurka yeelatay ayaa waxaa ka maseertay Saara. markii ay maseertay Saara ayuu Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam wuxuu kaxeeyey ilmihii yaraa ee dhashay Haajara iyo sidoo kaleba Haajara, wuxuuna geeyey dhulka Maka oo markaa ahaa bahgooye cidlo ah oo aan cidi joogin. dabcan halkaa markuu geeyeyna waa uu ka tegey. isagoo sii socda ayay Haajara ka daba tagtay, markaas ayuu ku tiri xaggaad nagaga tegaysaa, laakiinse umuusan jawaabin Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam. laakiinse sidaasoo kale iyaduna kamaysan daba hadhin Haajara ilaa ay ugu dambeyn ku tiri halkan inaad nagaga tagto ma Ilaahay baa ku faray. dabeedna isaguna wuu ishaaray in Ilaahay subxaanahu wa tacaala faray. iska tag bay tiri haddaba, allaha subxaanahu wa tacaala nama dayacaye. gabadhaasi waxay ahayd gabadh ku kalsoon allaheeda. run ahaantii say u kalsoon tahayna waxaad ka dareemaysaa hadalkeeda. Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam Haajara iyo Ismaaciil oo yar markaa wuxuu uga tegay in yaroo biyo ah iyo sidoo kale sahay yar. intii yareed muddo yar markay haysteen waa ay ka dhammaatay. sahaydii markii ay ka go'day ayay Haajara dhaqdhaqaaq bilowday iyo inay meelaha ka eegto in magaranaysa Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam uu soo socdo. waxay fuushay buurta Safa, markaasay halkaa ka eegtay inuu soo socdo, mise way arki weydii way ka soo degtay. haddana waxay fuushay buurta Marwa. run ahaantii 7 jeer ayay halkaa ku celcelisay. Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi sacyigu halkaas ayuu ka yimi. markii dambe ayaa waxay maqashay dhawaaqii ay maqashay ayay yara dhugatay amase ay isku tiri iyadoo aamus. markaas ayay ku tiri war qofkaagan dhawaaqayo wax ii qabo, mise waaba malagaas oo u dilaaciyey ceelka Zamzamka. haddaad isweydiinayso hore isu weydiinaysay ceelka Zamzamka goormuu adduunyada ku soo biiray? ceelka Zamzamka sababtaasuu ku yimi dhegayso. Haajara waxay isu soo ururisay ishii. Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxa uu yidhi allah u naxariisto Haajara, haddii aanay isu soo ururin lahayn ishaa runaantii waxay noqon lahayd webi. sidoo kale waxaa laga yaabaa su'aalaha inaad isweydiinayso biyaha Zamzamka wax laaliyo wixii doonaa loo cabbaa, wixii loo cabbana waa ay kaa kaxaynayaan. iyaduna sababtan ay ku timiye dhegayso. Haajara biyahan mar gaajaday u cabtaa gaajaday ka biyaan, marna xanuunkay u cabtaa xanuunkay ka biyaan, marna dhibaatada iyo daalkii loo cabtaa dabeedna daalka iyo dhibaataday ka biyaan. biyaha wax kastoo aad u niyeysatana maanta waa isla sidii wixii aad u niyeysato oo dhan bay kaa baabiinayaan. intaa kadib Haajara waxaa la soo degay qabiil ka soo guuray Yaman, iyagoo markaa ka dalbaday inay magaranaysaa biyaha ay la cabbaan iyaguna ay siiyaan nolol maalmeedkooda. Haajarana waxay ku tiri biyahan annagaa iska leh, laakiinse idinku waad nala degi karaysaan. ugu dambayn sidaasay ku wada degeen Haajara iyo qabiilka ka soo guuray Yaman. sidoo kale waxaa ku soo noqday Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam oo manaam ku soo arkay isagoo gowracaya wiilkiisa yar, rabana inuu fuliyo awaamirtii la faray. dabcan awaamirtii la faray markuu isiri fulina allaha subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu ku furtay Nabiyullaahi Ismaaciil wankan maanta aynu gowracno, amase neefka maalinta Ciidul Udxada aynu gowracno. meesha laga keenay inaan neefkaa gowracnaana iyaduna waa halkaa. dabcan waxaan filayaa maanta inaad casharo fara badan kala baxday, laakiinse wax walba tacab baa ka horreeya. Haajarana waad aragtaa dabcan sida ay magaranaysaay u samirtay oo dhibaatadii ugu samirtay. gabadhyahay adiguna waxaa lagaa doonayaa diintaada inaad ilaashato, diintaada inaad ku dadaasho, diintaada inaad barato, diintaada inaad ku heliso. ma ahee wixii laguu soo dhibo inaad iska soo qaadato ma aha. run ahaantii dhibaatooyinka maanta ina haystaana
waxay inuga yimaadeen innagoo aan aqoon u lahayn diinteennii ayaa maanta wax kasta laynoo hoosgelinayaa inagii gaaladu waxaan ku kala duwannahay waa ku dhaqanka diinta islaamka diinteena islaamku wax kastoo ayna tirina wax laynaga doonaya inaad sideeda u fidhino laynaga dooni maayo innaga sidan maxay u dhacaysaa iyo sidan maxay u dhacaysaa toonna laakiin waxaa laynaga rabaa sidii diinteena islaamkana tiri inaanu fidhino sunnaha nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh wax kasta isagaan kaga dayanayna dhaqanka isagaan kaga dayanayna socodka isagaan kaga dayanayna hadalka isagaan kaga dayanayna horumarka iyo wanaagaba isagaan kaga dayanayna laakiinse haddaan nidhaahno waxani waa waajib waxanina waa sunni waajibka waa laynooga baahan yahay wax laynooga baahan yahay sunnuhuna sidoo kale waa wax laynaga doonaya isagana inaan ku dayano rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamuhu calayh lianna maxaa yeelay ilaahi subxaana wa tacaala waxaa qur-aankiisa ku leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana intaa ka gadaal walaalayaal adigu ma ogid waxa ku wanaagsan iyo waxa ku wacan sidaa daraaddeed haddaba adiga waxaan ku leeyahay oo aan kugula talinayaa oo aan ku leeyahay gabadh yahay ku day nabiyullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ruuxaantii fideogan intaas ayuu ku egyahay intaan mid kan ka xiisa badan ku kulmayno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh